السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليقة سود وذا وعنيكم على أحمد ما أنت وعن كهل الدونا عنده إلهي إدمه تدبع على مضض أو مهم تنول والبو مركو قاريك حينيو أما أرضي كستو اسكده maxay tahay marka calaamadahaas toddoba calaamadood baan ka hadli doonaa. Toddobada calaamadood waa muhiim inaad baratid iyo meesha laga helo ayaan ka hadlaynaa. Calaamada koowaad aan ku bilaabayo waa calaamada stopka. Calaamadan ujeedaan waa stop sign. Calaamadan aad bay muhiim u tahay. Haddii aad aragtid calaamadan meelaha laga helana waa intuu doonaa. Calaamadan waxaa laga helaa sida isgoysyada xaafadaha marka ka soo baxaysaan oo kale waana laga helaa. Marka calaamadan haddaad aragtid daawade ama darawal ahow ama arday ahow xilliyada imtixaanka aad ku gudub jirtaan xitaa ninka imtixaanka ka qaadayo wadooyin noocan oo kale calaamado ay suran yihiin tabeela ayuu ku geenayaa. Kadib meeshaas oo kale waa uga dhici kartaa imtixaanka. Calaamadan haddaad aragtid waa inaad leenka cadiinka markaad soo gaadhid ama meesha lagu calaamadiyey in aad ku istaajisid baa loo baahan yahay gaadhiga. Haddii aad dhaafto leenkaas ood istaagi weyso waxaa kugu dhici karo shil bahal gaadhi oo ordayo oo isbiid ku socdo wadada ka laha ayaa kugu dhici karo. Marka waa inaad istaagtaa leenka lagu calaamadeeyay oo wadada iska eegtaa oo wixii socdina aad siisaa kadib aad socotid. Calaamada labaad aan imaano waa calaamada la dhahayo no entry ama do not enter waxa u taqaanid. Calaamadan haddii aad aragtid oo do not enter ama no entry la hayo oodan geli karin wadada, calaamadii hore waa calaamad regulatory ay ahayd amar ah oo waliba mamnuuc ah. Tani waxa weeye ayadana amar mamnuuc ah weeye. Marka calaamadan haddaad aragtid wadooyinka la dhigo horta waa wado laga soo baxayo oo kale weeye sida wadadan oo kale ayaa la dhigaa. Haddii aad aragtid calaamad aan la kulantid fadlan ha isku gelin wadada, waa lama galo. Calaamadaas haddaad isku gasho waa ganaax waliba ciqaabtiisa aad marayso. Calaamada saddexaad aan u imaano waxaa weeyaan yield ama giveaway wax la dhahayo. Calaamadan ayadana saddex geeska ah waa calaamad amar ah oo waliba lagu diidan yahay inaad wax samayso maxaa la jiray giveaway ayaa la dhahaa wada siin weeye. Calaamadan meelaha laga helo waxaa roundabout-yada isgoysyada laga helaa sidoo kale ayadana waxaa lagu sheegaya calaamadan haddaad aragtid shay walbo ama gaari walbo ama wax walbo wadada soo galo inuu asaga ka leeyahay mudnaanta ayaa lagu sheegayaa. Marka calaamadan meeshaad ku aragto fadlan ha isku gelin wadada ilaa aad ka siinaysa gaariga wadada ka lahaa. Markii aad siisid gaariga wadada kale inta badanna waa baabuurta midigta ka imaanaysa kale mudnaanta iska ilaali. marka meeshaad ku aragtid marmarna dhulka lagu sawir karaa oo waatan calaamad ah, marmarna ayadoo tabeela aad arkaysaan. aan ka socono calaamada afraad waxaa weeye no left turn. bidix uma leexan kartid. calaamadan waxaa waaye no left turn weeye, bidix uma leexan kartid. maxaa lagu diiday? haddaad bidix u leexato waa wado khaldan oo kale weeyaan. baabuur soo socotay ama wadada soo galaysay waa kala kaarman karta. haddii la dhaho no left turn waa mamnuuc. calaamadan waa lagu diiday. wrong side way ha isku gelin. marka maxaa ku banaan haddii la dhaho no left turn? meelaha laga helan awe meeshan oo kale laga helaa. calaamadan Soomaaliya si u samaysan tahay ha gelin bidix. maxaa ku banaan marka inaad toos u socotid ama haddaad midig midig gashid. okay, calaamada ku xigto waa cagsigeedii no right turn. calaamadan waxaa waaye no right turn. midigta ayadana waa mamnuuc inaad u leexatid. ayadana sababta lagu diiday waa midigta waa wada khaldan saaxib
ha isku gelin dalawar hataa tahay fadlan ka fiirso wadadaas traffic police ugu dhigin calaamada waxaan u maanaynaa ugu dambeyso toddobaad waxaa weeye speed limit calaamadan speed limitka lagu sheegayo xawaaraha waxay noqotaba xawaaraha ka hadlaysa horta hadda calaamadan oo kale speed limit keeda waxaa waaye kasoo qaad waa konton saacadii bayna ku socon karto wadooyinka isku mid ma aha wadooyin qaar waxaa lagu dhihi 40 baa lagu dhigi karaa macnaheeda 40 ku soco xagee laga ogaadaa gaariga saacadiis xagee laga ogaadaa halkan ay soo saaraya shaashadan waxaad u jeedaan calaamadan speed limit waa kana speedometer la gaariga speedkiisa halkan laga socdaa speedka gaariga wuxuu ka bilowdaa ama ka kacaa eber ilaa iyo 180 baawur qaarna way ka badan yihiin baawur qaar way ka badan yihiin 240 ilaa 300 bay gaarayaan marka haddii aad aragtay marka calaamadaas oo lagu leeyahay speedka inta ku soco fadlan iska ilaali waxyaalaha koos gareeyo ama keena shilalka ee u badan yihiin ayaa waxaa ka mid ah adiga oo lagu dhahay meeshan ku soco konton inaad xawaarihii saaxiib aad ka badiso taasna waxaad kaga dhici kartaa imtixaankii ama waxaa kugu dhici karo shil foolxun kaasoo sababi karo dhimasho kugu sababi karo marka dalawar markaa tahay waxaa laga rabaa inaad la imaatid taxadar gooni ah inaad la imaatid ama dheeraad ah gaariga marka aad kaxaynaysid dalawar haddaad tahay waa inaadan qof cabsan ahayn waa inaadan daroogeysanayn marka iska ilaali marka sharciyada inaad raacdid ayaa muhiim ku ah marka calaamadahan hadda aan ka hadlayay ayaa ah calaamadaha ugu muhiimsan kuwa kalena way jiraan way farbadan yihiin calaamadaha hadduu ilaahay raa cashirkeena kalaan ku qaadan doonaa insha allah calaamadaha marka haddaad aragtiin fadlan meelaha laga helo inta badan tabeelooyin baa jira tabeelada inta badan before ayaa la dhigaa wadadii intaad gaarin ka hor wadadii weli maada gaarin way ka horeysaa moogta marka wadadii waxaa lagu sheegayaa waxani ficil soo socda inuu yahay ma fahamtay wax soo socday inuu yahay marka calaamadii way ka horeysaa weeye calaamadan marka lagu dhigo 50 mitir oo kale ama 100 mitir markaad socotid ayaad arkaysaa wadadii laftirkeeda baad arkaysaa marka halkaas ayaan oga baxi doonaa insha allah haddii aad muuqaalkan ka heshay channelkeena youtube-ka subscribe saara hadduu ilaahay raado asxaabtaadana la wadaag oo shisheeye kare haddaad nagu cusub tahayna maxaa la jiray soo dhowow oo la soo ardayda halkaad naga daawanaysaan waa Sakhan Driving School guuleysta ayaan in leeyahay asxaabta qaaliga ah waa anigoo Maxamed Axmed leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh